waxa uu ku tilmaamay Soomaaliyeed waxaana lagu xukumay erey cunsuriyad leh oo uu ku caayay sida daraadeed xukun ayaa lagu riday maxkamadda Riyaad ee dalka Sacuudiga ayaa soo saartay xukunkii ugu horeeyay ee noociisa oo kale ay rido muwaadin Sacuudiyaan ayaa la xukumay kadib markii ay muwaadinad kale oo Sacuudiyaan ah ay ku soo oogtay dacwad maadaama uu ku tilmaamay inay tahay Soomaaliyeed qoraal ay dhanka Twitter ka soo dhigtay eedeysanahan waxaa lagu riday xukun ganaax lacageed oo 60,000 oo riyaal ah waxaana lagu qasbay inuu u cudur daarto muwaadinada uu u gefay laakiin dhacdadan waxay dhalisay guux fara badan dad xukunka taageersan iyo kuwa kale oo ka soo horjeeda oo diidan in ereyga Soomaaliya uu noqdo mid cunsuriyada loo aqoonsado muwaadin Sacuudiyaan ah oo la yiraahdo Suldaan Al-Aamir ayaa waxa uu yiri haddii walaalaha Soomaaliyeed ay Sacuudiga soo gaaraan oo qof uu weydiiyo jinsiyadooda ha iska jiraan inay Soomaaliya yiraahdaan maadaama uu ereygaas noqday mid cunsuriyadeed oo dhanka Sacuudiga maxkamad lagu soo taagi karo qof kale oo dhacdadan ka falceliyay ayaa soo qoray qofka gabadha ku tilmaamay Soomaaliyeed waa cunsuri maxaa yeelay si qaldan ayuu u isticmaalay tii ku dacweysana waa cunsuriyad kale oo maxaa yeelay waxay u qaadatay inuu ku bahdilayo garsoorihii maxkamaduna waa cunsuri maxaa yeelay Soomaaliyeed ayuu u qaatay inuu yahay erey cunsuriyadeed oo ay waajib ah in lagu ciqaabo qofkii adeegsaday muwaadin kale ayaa waxa uu soo qoray haddii uu yiraahdo Soomaaliyeed yahay oo uu la jeedo inuu ku bahdilo waxa uu noqonayaa erey cunsuriyadeed shakhsi Soomaaliya ay ugu qoran tahay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ka soo jawaabay haddii aad qof Sacuudiyaankii ku tiraahdo waa bahdil qofkii aad ku caayday waxay la mid tahay inaad tiri adoonkii dulliga ahaa ee caloosha weynaa jaahilkana ahaa qofkii u muuqday inuu Soomaalida difaacayo Cabdalla ayaa waxa uu soo qoray xukunka ayaaba cunsuriyad ah lagu bahdilayo Soomaaliya maxaa ereyga Soomaaliya cunsuri ka dhigay la isku ciqaabo maxkamadaha Sacuudiga xukunkani sidoo adiga kula muuqda Hanad Ali Guleed